مالونكس ما أنت لكم حكوها يا بوجا لما اسمه سارن وقري الدكتور حسين قليب حاج حسين قليب حاج wuxuu ka mid ah saraakiishii jabhadii SDF wuxuu ardadii ayagoo jaamacadaha dhiganaya ka tagay jabhadaha galay haddaba buuggan waxaan oran karaa buugta laga qoray jabhadaha galay Ethiopia ama jabhadii Soomaalidaba buugga kaliya oo dhalishoodana sheegaya waxa ay u arkeen inay xaq u leeyahay ama dooddoodana soo bandhigaya labada wajiba buugga kaliya ilaa hadda inta la hayo tilmaamaya weeye intaan arkay anigu haddaba qiso kamid ah soo qaadanaya buugga qisooyinka ku xusan hawlgal la yiraahdo 1981 jabhadda SDF waxay qarxaya ka fulisay magaalada Muqdisho haddaba su'aashu waxa weeye qarxiyada fuliyay sidee loo soo abaabulay shakhsiyaadkii ka qayb qaatay iyo maxay ku dambeysay sida Xuseen buugga ku xusahayo waan soo koobaya si aan u soo yareeyo waxa keenaya si hawlgalka loo fuliyo waxa keenaya nin uu magaciisa ku sheegay Maxamuud Maxamed Cali geedi wuxuu keenayaa laba wiil buu keenayaa oo loo tababarayaa dhowr ayagoo ah inay qarxiyo fuliyaan laakiin labada wiil loo diray xamar magacyadooda midna wuxuu ku sheegayaa yoole midna wuxuu ku sheegayaa gorod labada wiil waxa loo tababaray inay qarxiyo fuliyaan xamar tagaan waxa la baray sida qaabka qarxiyadu yihiin tababar baa la siiyay waxay sameeyeen intaysan tijaabooyin bay sameeyeen intaysan bixin wiilashii markii ay heleen ay tababarkii dhamaysteen oo la dirahayay baa waxa loo keenay qaraxa nooc noqonaya ay fulinayaan waxa loo keenay budada qaraxa bahalkan laga sameeyo TNT da la yiraahdo si ay halka uga qaadan ilaa Muqdisho la tagaan haddaba si ay waxay ku qaadayaan waxay noqoto inay saabuunti baylka la oran jiray kartoomada ay ka dhamaato in lagu shubo qarxi kadibna qarxisadana afka loogu shubo qarxisada waxa si gaar ah loogu ruday sida uu tilmaamayo buugu sigaarkii la oran jiray galayrka baakadkiisa ay ku riteen qalin oo kaloon ahaa laakiin qaraxa waxa lagu diyaashay kartoonadii saabuunta baylka la oran jiray ay ka dhamaatay boorsana loogu xiray markii inta la sameeyay waxa baa la yiraahdaa wiilashu kaligood ma socon karaan labada wiil aan magacyadooda xusay yoole iyo gorod la leeyahay midna waa 18 jir yoole kan gorodna waa 16 jir marka niman socon kara kaligood ma aysan ahayn niman dhulka iyo deegaankana aqoon u lahamaysan ahayn waxa loo baahday nin kaxeeya marka isla Maxamuud Maxamed Cali geedi baa wuxuu keenayaa nin oday ah wuxuu u ballan qaadayaa lacag iyo qor in la siinayo hadduu wiilasha xamar geeyo ninka odaga oo reer baadiyaha waxa loo sheegay wiilashu inay dukumeenti xamar u wadaan oo geynaya boorsada ay wataan waxa ku jira dukumeenti yahay marka inuu xamar geeyo guri u jaaro ay halka degaan intaas uu jidka marsiyaba lagu heshiiyay kadibna uu helayo ninka odaga ilaa iyo waxay ka galayaan socodka magaaladan Gallisoor la yiraahday ka galayaan cadaaday marayaan ilaa ay xamar safarka ilaahay waa u fududeeyay waayo wiilasha sida buuga ku xusan deegaanka ay ka galayaan dadka degan bay ahaayeen sidaasna u baxeen xamar markay galeen ninkan odayga guriga u soo ijaaray wiilashii soo arag guri marka u soo ijaaray wiilashu waxay barteen magaaladii meelihii baa la kala tusay dhulkii bay baranayeen ninkan odayga oo wada lama socdo wiilasha waxa ay wadaan iyo boorsadan uu wato waxa ku jira inay yihiin qaraxyo moogto adigu markii muddadii ay soo gaartay ay dhulkii waxa la siiyay inta soo bixin inta goob oo ay rabaan inay ka fuliyaan qaraxyada waa la soo siiyay laakiin sida buuga ku xusan ma aysan raacin waxaana u diiday sababta u diidayna way soo socotaa markii ay xamar galeen la kala baray goobaha ay soo arkoodeen taxi bay qaateen qaraxa ugu horeeyay waxay 3 qarax bay xamar ka fuliyeen mid safaaradda waxay hor dhigeen la yiraahdo safaaradda Masar midna alkaabta agteeda oo petrol station ku yaala bay dhigeen Shabeelle
iyo midka saddexaad saddexdaba marka ay fulinayaan idaacadihii baa warku gaaray xamar oo dhan baa khalkhalgalay ninkii odayga ah oo wiilasha waday qaraxii koowaad markuu arkay buu shakiyey boorsadiina wuu waayey boorsadii wiilashu watayna meesha ka maqanna wuu arkay markuu arkay wuxuu dareemay wiilasha iyo qaraxyadu inay isleeyihiin boorsadu inay la socoto maalintuu sidaa arkay buu isagoo ayagoo guriga ka maqan uusan cidna u sheegin buu gurigii yimid wixiisii buu ka qaatay wuu ka caran dhalinyaradii markay soo laabtay habeenkii waxay waayeen ninkii odaga ahayo guriga u kureeyo waday mogta ninkii markay waayeen waxba kamaysa soo qaadina waxay fuliyeen labadii mishin oo saddexdaa meelood ay kala qaraxyada ay dhigahayeen bay dhigeen kadib way soo baxeen marka wuxuu leeyahay sheekada buugga ku qoran maadaama isgaarsiin ma jirin oo ma aanan heli karin wiilashu siday noqdeen warkama hayn siday maalintay noogu tageen baa noogu wardambaysay ilaa goor habeen ah oo ninka maxamuud maxamed cali sheekadiisa aan dib ugu laabto maxamuud maxamed cali wuxuu ahaa sida buugga ku xusan nin badmaaxa buu ahaa markiisii hore oo nimanka maraakiibta la socotuu ahaa inuu jabhadda soo galo waxaa u sabab ahaa nin ay raggii inqilaabka loo dilay nin kamid oo hebel gorod la oran jiray baa in adeerkiis ahaa marka carada uu ka qaaday ninkaas la dilay oo inqilaabka raggii dhalinyarada saraakiishii kamid ahaa baa ku qasabtay inuu jabhadda soo galo marka wuxuu ahaa nin sida buugga uu ku xusayo xuseeni nin reer magaala adduunka soo maray sheeko badnaa furfurnaa nin karti badan baa ugu qoran buugga marka wuxuu samayn jiray idaacadaha adduunku la socon jiray oo uu dhagaysan jiray habeenka warbixintu ay soo baxday raadiyuu ka maqlay 24 hours ama idaacadahan Voice America kuwan by BBC da ilaanta Ingiriiska iyo buu dhagaysan jiray Focus on Africa aduu wuxuu helay habeenada kamid ah buu Voice of America warka ka soo galay markaasuu wargashay inuu hawshii wiilashu ay guuleysteen soo badar wiilashu sidii bay xamar uga soo baxeen ninka yoolo leeyahay magaalada Galinsoor markuu marayay baa la qabtay waayo waxa la ogaaday looma qaban inuu xamar qarax ka soo fuliyay laakiin waxa la ogaaday oo la hayay hooyadiisna Galinsoor bay deganayd waxa la helay in inuu dhalinyaradii gashay jabhadda ahaa baa la ogaaday marka waxa yaab noqotay in asoo xamar ka yimid oo meesha maraya la arko yoolo meeshaas lagu qabtay waxaana la keenay gaalkacyo laguna xukumay jeelka gaalkacyo lagu riday sida buugga ku qoran yoole dhowr sano kadib baa asoo la jir diray waxa ka soo siidaya xabsiga hooyadiisu qarash bixisay sidaasa mishinku u dhacay yoolana asagoo la jir dilu buu ku soo laabtay laakiin ninkii kale gorod dhalinyarada 16 jirka kuma xusna buugga iyo wuxuu asagoo mato laakiin yoolo waa sheegaya inuu asna soo laabtaa dhacday haddaba dib aan u laabto halka markaan joogo ku soo isla xilligaas waxa laba qarax ayaduna ka dhacay magaalada Gaalkacyo mid wuxuu ka dhacay bangiga midna wuxuu ka dhacay meeshii loo oran jiray xoog iyo korontada meeshii motorku yaalay nalka magaalada shida xilligaas markii 81 anigu waxaan ahaa cunug yar waxaan soo raaci jiray badanaa habeenkii dhalinyaro iga waaweyn aan walaalanahay baa masjid ku yaala Gaalkacyo qofka yaqaan guriga gobolka hortiisa baa masjid yar oo masjidka milishiibiyada la oran jiray ku yaalay marka nimankaasan soo raaci jiray oo kitaab meesha loogu marin jiray marka kitaabka macal waxa u marin jiray nin dhakhtarka magaaladana ah baa nimanka wax barana ah oo ninkan hadda la yiraahdo Xasan buu la dhashay Allah naxariiso uu dhintay Dr. Maxamed Daahir Aweys baa la oran jiray marka anigu kitaabka ma marsin jiray laakiin ciyaalka meesha yimaado nimankaas soo raaco iskaga ciyaar masjidka iyo baan ahaa habeenkaas qaraxa uu dhacayo masjidka banaankiisa jirdiin ah baan fadhiyaa nin dhalinyaro ah baa ila fadhiya inaan oo aan saaxiib inaan nahay aan jeclay ma xasuusan ninka magaciisa wuxuu ahaa shakhsigu ahaa ma garanayo laakiin waxaan garanayaa jirdiin yar oo masjidka milishiibida hortiisa ku yaalay baan fadhiya waxa uu hormaraya marka
gudoomiyihii gobolka iyo laba askari oo waardiyeynaysa baa sidaa u hormarayo wada hormarta guriga gobolka moogto qarax markuu dhacay anigu meesha aan fadhiyo dhabarkeedu ku aadan yahay meesha aan fadhiyo marka loo fiirsho qaraxu meeshu ka dhaco bangiga ah hal 2 kilomitir meelahaas bay isku jirtaa ma jeclahay ma aqaanina xisaab ahaan laakiin qiyaas ahaan waa sidaa qaraxu markuu dhacay waa qaraxii ugu horreysay noloshaydana aan maqlo Soomaaliya arag marka laga soo tago diyaaradihii Dhuusameyn ugu duqeeyay sanadkii ku horreysay 80 waxaa dhacday marka qaraxu markuu dhacay aan maqlay waan orday waxaan ku orday askartaan ku orday askartu markaan ku soo orday aniga wiilkii ila fadhiyay waxaan naqabtoon celiyay askartii waardiyeynaysa gudoomiyaha gobolka gobolka xilligaas gaalkacay wuxuu ahaa waxa la oran jiray Xaaji Dalab nin oday oo Xaaji Dalab la yiraahdo ahaa ninku wuxuu yiri marka wiilashu ayna istaajiyeen baa ninku wuxuu leeyahay wardaayo wiilasha maxaa dhacay ayagu weydiinaya war maxaa dhacay waa maxay aniga inta wixii ka dambeeyay masaajidka laga soo baxay dadku waa kala cararayeen ma xasuusto laakiin waxaan xasuusaa waa intaas aan xusahay hadda oo ah inaan maqlay qaraxa ninka odaga ay askarta waardiyeynaysa hormeeray aan ku orday moogto marka ma aqaan wiilasha fuliyay hadaba inay isla nimankan yihiin iyo inay niman kale yihiin oo isla xilli la soo diray buuga kulay dhacdada aan xusahay kuma xusna laakiin labada dhacdo midna ka dhacday motorka nalka oo shida midna bangiga dabadiisa darbiga bangiga dhinaca suuqa xigaba isla xilliga ahaa moogto maanta waa la yaqaanaa laakiin waxaad ka arkaysaa dowladda Soomaaliya xilliga waxay ku eedeysay jabhadu waa sheegatay oo inay ayagu furisay laakiin dowladda shisheeye gacan shisheeye iyo waxbay xilliga lagu xusay ma aqaantay saraakiishii dowladda Soomaaliya wax ka qoray ama ma hayo laakiin buuga Xuseen oo laba isma saarin dhacdooyin badan oo badanaa dadkii kale dhinaca dowladda Soomaaliya ka soo horjeeday markaan waraysay ay isku raacayaan inay dhabta u badan tahay baa ku xusan Soomaaliya dhowr hawlgallaa ku xusan laakiin kaas man ka soo qaadaya buugan